بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال soo dhawaada YouTube channel-ka aad daawanaysaan waa AK Official maanta challenge idin wadno waxaan rabnaa qiso yar oo xaqiiq ah oo dad ku dhacday dad Soomaaliyeed wiil iyo gabar Soomaaliyeed ku dhacday in idin la wadaagno waxay ogolaadeen in la baahiyo qisadooda laakiin waxaan u isticmaalnaa magacyo kale maadaama ay dhaxeen magacyadooda hana loo qariyo liibaan cali cilmi wuxuu ku dhashay deegaanka Warshabo ee degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug sanadku markuu ahaa 1990 bishii koowaad ama January wuxuu la noolaa hooyadii oo lagu magacaabo Aamina Cismaan iyo aabihii oo lagu naanaysi jiray Cali Yare qoyskiisu waxay ahaayeen qoys reemi ah ama reegura ah ama xoolo dhaqato ah qoys reebadiya liibaan dadiisu markay jirtay 2 sano waxa geeriyooday aabihii oo lagu naanaysi jiray Cali Yare hooyadii ayaa karimadiisa ka qayb qaadatay ilaa dadiisu ka gaartay 7 sano 5 sano kadibna waxa geeriyooday hooyadiis wuxuuna meesha ku noqday hooyo la'aan iyo aabba la'aan qof kale oo la dhashayna ma aysan jirin kadib waxaa soo kaxeeyay oo baadiyaha ka soo waday abtigii hooyadii la dhashay oo deganaa magaalada Muqdisho waxaana loo soo wareejiyay xaafad ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Shanta Geed oo ka tirsan degmada Holwadaag abtigii wuxuu iska ahaa nin sabool ah qoyskuna ma aysan haysan wax fara badan ama hanti ah oo ay ku maareen karaan noloshooda ama wiilkan wax fara badan ay ugu qaban karaan abtigii wuxuu ka shaqeyn jiray ama waardiye uu ka ahaa iskuul lagu magacaabo Ibn Khuseyma oo ku yaala magaalada Muqdisho liibaan waxaa la geeyay sanado kadib iskuulkii Ibn Khuseyma oo waardiyaha ka ahaa aabihii abtigii aan raada meeshaas markii la geeyay waxaa ku adkaatay in uu ka bixiyo qarashka oo lagu aadayo ama baabuur raaca inuu ka bixiyo ayaa ku adkaatay adeerkii ayuu wacay wuxuu u weydiiyay in uu liibaan ka bixiyo lacagta baabuur raaca oo iskuulka lagu tagayo adeerkii uu bixi waayay lacagta baabuur raaca iskuulka lagu tagayo wuxuu u soo wareejiyay iskuul hoyga xamar la yiraahdo oo ku yaalay dalcada Cabdiqaasim iskuulka ayuu dhiganayay lacagta baabuur raaca adeerkii ayaa ka bixi jiray guriga abtigiisna uu ku noolaa inkastoo nolosha magaalada ku dhibaatooday liibaan oo dhibaato fara badan kala kulmay sababtoo ah hooyana ma haysan aabana ma haysan qof xaaladiisa si toos ula socotayna ma aysan jirin oo ka warqabta asaga kadib iskuulka asagoo dhiganaya ayay waxay ku kulmeen iskuulka gabar lagu magacaabo Caaisha ay ahayd Caaisha waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho waxay la nooleed qoyskeeda oo ka koobnaa aabaheed walaalkeed aabaheed iyo hooyadeed dhaleen hooyadeed iyo walaalkeed oo hooyadeed dhashay ama ku hooyo ah walaal ku hooyo ah walaal ku aabbe iyo hooyo ah iyo iyada iyo hooyadii aabaheed ay isla noolaa waxay deganaayeen Taleex xaafadda Taleex oo degmada Hodan ka tirsan magaalada Muqdisho qoyskaas waxay ahaayeen qoys ladan lacag iska haysta gabadhoodana waxay dhiga jirtay dugsiga hoyga xamar labada qof oo qisada ay ku socoto oo qisadan jaceelka xanuunka badan ay ku dhacday waa Caaisha iyo liibaan markii ugu horeysay waxay ku kulmeen iskuulka hoyga xamar ee ku yaala dalcada Cabdiqaasim fasalka afraad ay iskuulka ka bilaabay durbadiiba wuxuu la qabsaday iskuulka iyo casharadii uu qaadanayay sababtoo ah liibaan wuxuu ahaa wiil maskax furan xaafid quraan ah waagi miyiga oo joogana quraanka soo xifdiyay si fiicanna u yaqaan dantiisa ama dadaala mar walbana wuxuu jeclaa in meesha uu joogo ama shaqada uu qabanayo ee ka muuqato laakiin ma uusan haysan garab buuxa oo ku caawinayo hawsha uu qabanayo gabadhii waxay aragtay liibaan dhowr jeer asagoo kaalmo galayo oo activity-giisu fiican yahay iskuulka dadka loogu jecel yahay oo kamid yahay laakiin waqtiyada bareega ama dadka baxaan oo ardayda ay soo nafisaan ma uusan bix jirin asaga iskuulka ayuu ku hakan jiray gabadhii ayada waxay kamid ahayd dadka ugu firfircoon galaaska qofka labaadna way ahayd oo liibaan ku soo xiga mar walba waxay isku dayday inay xaaladiisa wax ka ogaato liibaan way u tagtay waxayna ku tiri sidee wax u jiraan ma baxdid markay ardayda baxayaan dhibaato ma ku haysato leeliga waqtiga oo bareega la aadayo leeliga uu ka shaqeey jiray asaga leeliga maxaa guriga ma uga shaqeysay raada maxaa inta uga shaqeysaa liibaan xaaladiisa ayuu uga waramay
wuxuu dhahay waxaan ku dulnoolahay guri abtigeyga sabool ah ma haysto leer ah wax ku aqriyo cidda waxay isticmaalaan fuunuus ay isticmaalaan saa darteed fuunuusta aniga keligii inta la isiiyo wax ku aqriso ma suurtagelayso dhahay sababtoo ah cidda kale dhan ayaa u baahan. kadib gabadhii way isbarteen liibaan wax badan ay wada socdeen dugsiga hoose oo dhan ayay isla soo dhiganayeen barasho fara badan iyo nolosha wax fara badan oo iska kala ogaadeen labadooda. waxay weydiisay noloshiisa gaarka ah wax uu qabto inuu abtigii la noolaa oo kaliya ayay ogeyd marka hore noloshiisa gaarka ayay ka wareysatay. wuxuu ku yiri aniga waxaa la noolahay abtigii sabool waaye wax fara badan oo hanti ah oo haysta ma lahan cidda biilkeeda wuxuu ka dabaraa meel waardiye ka yahay saas darteed waxaa sameeyaa marka iskuulka ka baxo galabtii meel baabuurta lagu dhaqaa sii maraa baabuurtaas iyo waxaasaa tirtiraa oo dhaqaa kadibna waxaa ka raadsadaa baawur raaci iyo waxaan ka raadsadaa wixii aniga aan cuni lahay. aaday uga xumaatay gabadhi wayna ka danqatay. caaisha durbadiiba waxay la socodsiisay aabaheed oo waxay ku tiri aabo noloshaas inaan ku noolaado ma jeclaa lahayd oo aniga noloshaas inaan ku noolaado oo gelinna aan shaqeeyo gelinna aan waxbarto dhib fara badan iyo rafaadna aan maro ma jeclaa lahayd anoo da'daan ah. markaas waxaa dhahay ma jeclaa lahayn ilaahayna kuma geliyo dhaha gabadheeda. kadib waxay u sheegtay waxaa jira wiil fasalka ila dhigta oo yar aabbana aan lahayn hooyana aan lahayn wax ka dambeeyana lahayn noloshaasna ku noolaa jiro ima caawina aabe. markaas wuxuu dhahay odaga waxaa waay dadka lacagta le waa la yaqaanaa waa iska kibir badan yihiin. wuxuu ku dhahay wiilka ani maa dhala maxaa iga galay waxba igama gelin waa akhlaaq daran tahay fasalkaaga tartiib u dhigo haddaa waxbarasho rabto waay. okay gabadha hooyadeeda aada u jecleed qof wax fahansan oo horey wax u barataan ay ahayd. caaisho hooyadeed ayay barnaamijka u sheegtay ayadaa caawi jirtay oo lacag sii jirtay si ay wiilka tasarufaad iyo baawuraac wuxuu ka dhigtay waxaas ay uga caawiso. kadib meeshaas wuxuu ku kansalay shaqadii uu qaban jiray oo ahayd inuu baawuurta iyo waxaa tirtiro. durbadiiba caaisho markay ogeysiisay hooyadeed in wiilkaas caawin u baahan yahay wiil fasalka dhigtana uu yahay wax garab taagan aysan jirin hooyadeed ayaa sii jirta tasarufaadka uu ku dabaraya noloshiisa wiilkaasna way garab istaagneed gabadha. isagana wuxuu ka caawiyey inay dadaalkeeda sii laba jibaarto cashiraduu la diyaarin jiray intay fasalka joogto. wuxuu ka ogolaaday aakhirkii in gaariga loo soo diro gabadhaas ay guriga ka soo marto subaxda ayada ay soo qaado galabkiina ay guriga ku celiso. xiriirkooda saaxiibtinimo ama waxbarasho wuu sii dheeraaday dugsigii dhexaal isla gaaray. galaas walba wax lacag oo v ah lama weydii jirin asaga sababtoo ah kaalinta koowaad ayuu geli jiray. sanad walba oo kaalinta koowaad galo waxaa la sii jiray waxbarasho free ah bugaagta iyo uniformkana waa loo gedi jiray. sanadkii u dambeeyey ee dugsiga dhexe markuu dhiganayay wax ka bedelaya ma jirin bugaagta iyo alaabta iyo waxa la siiyay wax ka bedelaya ma jirin. dharkiisi iyo wixiisi ayaa wasaqaystay ilaa sanadkii oo dhan oo hal joog ku taagan yahay. markay gudbi rabeen iskuulka waxaa lagu yiri lacago yar oo waxaa lagu leeyahay oo iskuulka ah lacagahaas waxaa laga rabaa inaad soo bixisid oo soo shubtid ninkaana kun shilin ma uu siinin oo nafsadiisa ama uu ku dabaro inuu waxbarashadiisa ku sii wato. liibaan waxaa ku adkaatay inuu jawaabo ka bixiyo iskuulka su-aalihii laga weydiiyey ahayd inuu sawir soo galo dharkaaga oo jexjeexan dartiisana dharkan kuma gelaysidaa lahay imtixaanka. gabadhi saaxiibtiis caaisha ayaa u timid waxayna ku tiri aan ku caawiyo. markii ay ka codsatay inay caawiso oo dhar iyo wax ay u iibiso lacagaha ay ka bixiso maadaama ayada hooyadeed ay garabka haysatay oo lacag leh wuu ka diiday isagoo isku haleynaya foomastarkiisa oo lagu magacaabi jiray macalin tahliil. foomastarka wuxuu ahaa ninka galaaska ugu jecel yahay liibaan laakiin wax kaluu kala kulmay. maalintii ugu dambeysay imtixaanka la geli rabay maalintii ka horreysay waxay is arkeen foomastarka asagoo fadhiya jaraanjarta iskuulka laga soo galo. wuxuu gacanta uga dhigay macalin tahliil wuxuu ku yiri macalin waxaa rabaa inaa damiinato. markaa ku damiinanayo wuxuu yiri geeli ari aa leedahay ma jiro yaase kaa dambeeyo markaa ku damiinanayo isii daa uu yiri gacantiisii iska fujiyey. wiilkii meeshuu ku niyijabay markiiba waxaa u timid caaisho oo wada kaarka clinic kaarka imtixaanka lagu galayay iyo uniform ee ka soo qaaday wiil walaalkeed oo ayada la dhashay ku aabiyo hooyo ah oo damiino guriga joogi jiray uniformkiisana u soo qarisay dugsi dhexe ahaa. kadib sidii imtixaan ku galay kaalinta kuwaad u galay fasalkii foomanka u gudbay iskuulka ayaa haddana mar kale ka caawiyey in uniformkiisa
iyo bugaagtiisa la siiyo maadaama kaalinta koowaad uu galay. kadib sawiro ay isla galeen gabadhii iyo wiilkii liibaan, Caaisha iyo liibaan sawiro isla galeen odayga loo geeyey. odaygii sawiradii arko wana ka carooday. wiilkan faqiirka la socotid maxaa waa dhahay gabadhii. waxay tiri aaba wiilkii oo aan kuu sheegaya waaye, ha caawin hana dabagelin soo kuma dhihinaa lalahay. markaa waxay ku tiri inaa caawiyaa u baahanahay sababtoo ah waxaa waaye wiil faqiira waaye, wax garab taaganna ma lahan, dadoo dhanna anigu oga yaqaana, aabbihi hooyo ka dambeeyana ma lahan. okay, markiiba odagu wuxuu garwaaqsaday inuu gabadhii ka dhiga xabsi guri. gabadhii gurigu ku xiray galaaska foomanka markay ahaayeen, banaanna ma aysan u bixi jirin. bilooyin fara badan oo ay xirneed. wiilka bilooyinkaas wuxuu samey jiray maamada waxay noqdeen saaxiib dhow. wuxuu u imaan jiray odaga marka guriga uu ka maqan yahay guriga imaan jiray, wuxuu ka qaadi jiray bugaagta gabadha ay leedahay, iskuulku tagaa ayadoo cashirada u qoraa marka hore liibaan, kadib cashiradiisoo qorana wuuna u keeni jiray habeenkii maqribadii intuu odaga maqan yahay ayuu u keeni jiray. sidaas ayaa cashirada guriga ugu diyaarsan jirtay. imtixaanka markay bil camal ka dhiman tahay oo revisionkii la bilaabay, Caaisho hooyadeed waxay odayga ka codsatay in gabadheeda ay imtixaanka gasho oo u ogolaaday inay imtixaanka gasho. wuxuu ku yiri maxay ku galay imtixaanka, waxba ma taqaanay imtixaanka miska fariisanay. marka waxay sharad ku galeen labadooda. waxay tiri sharad ila gal, habarta aad u caqli badneed, gabadheeda haddii imtixaanka ay ku baasi weyso, ma dhihin haddii ay kaalin geli weyso, haddii imtixaanka ay ku baasi weyso waxbarasho danba ha u ogolaaneen. isagana wuxuu dhahay haddii ay ku dhici weyso ama wax yar dhicitaanka xataa ay ka kormarto, waxbarashadeedana free u tahay waa dhigane, yarkaas dartiis aan waxbarashada ugu joojiyana waa caawina waa u ogolahay. bas barnaamijkii habarta u sheegtay maamadii wiilkii oo liibaan. gabadhii revisionkii maalinta koowaad u dhaafay, maalinta labaad ay imaatay, revisionkeedii qaadatay, isagoo revisionka u qoraya imaatay, garabkiisa soo fariisatay, waa isxaal wareysteen. revisionkii u dhameeyey wuu siiyey, gacanta ka saaray. imtixaankii gabadhii waxay noqotay inay gasho kaalinta koowaad. isaga ayaana kas isku gafsiiyey su-aalaha qaar si ay gabadhan kaalinta koowaad u gasho. kadib odagii wuxuu u ogolaaday gabadhii inay wadato waxbarashadeeda, wiilkiina ay caawiso. sidaa darteed iyagoo ka faa'iideysanaya qoyskooda, wiilka damiinka ee guriga u jooga inuu wax u fahansiiyo, habartana wiilka bahgoonida ee dhashay oo lahay balwad lahaa, nin